qaar ka mida dadka ka soo goosta al-shabaab waxay dileen madax iyo ciidan halka kuwo kalena ay dib u laabtaan muddo marka ay joogaan kuwo kalena waxay ururiyaan xogta laamaha dowladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsi geliyaan si ay uga hor istaagaan in ay wada shaqayn la sameeyaan dowladda ama inay macluumaad siiyaan sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista ee idaacadda v o a u sheegay khubaro dhinaca amniga ah waana mowduuca barnaamijkaasi uu toddobaadkani ku saabsan yahay waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf. ururka al-shabaab waxay si ula kaca maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dowladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dowladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dowladda iyo inay mabda'a al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay. madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay. 15 bishii May ee aynu soo dhaafnay Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Beled Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim. waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu u tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoondhawe. ka hor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan. dadka kale uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horey gudoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Beled Xaawo. aniga aan hadda buu yiri waxaan rabaa meesha degantaan waa inaad meesha degantahay oo sheekaysano muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imana arki karo gurigeyga iyo agyaala sabtaasaan ku yiri. markuu adig weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idin soo maro inoo soo maro raadinay. markii uu sheegtay inuu ka soo goostay al-shabaab bishii Janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas'uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeello gaadhsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene. Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayay inuu ninkaasi xorriyad siiyo isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa. ربوتكاس قري ومقالني لكن طبعا هذا أنا كده لما دلنا جانس ونقول دلنا مو سنهلي كريم أنا كمان عندي ونقول ماذا وأسكريات ونقد لي ما واحد كو أمنتين نين صار وشباب ولا جيابا إنه معلومات بحيو واحد كو أمنتين قفلة يقانوها أو هل أحان ماركتي دو محل لو أمنين نينكاس أو هارون شباب ولا الشباب هلد ملهان دوانا لغما آمنوه أنا وحا كآمن سنة شباب مدر بالدرير هاي وأنا لا درير دورا بإذن الله تعالى إنت أنو لهاي محان أوغا يعني قف كستو أو صومالي أو مسؤول قفك الله صدر هاي أو الشباب كو دي لهاي مسكدتك أو وحيقا إنو يهاي أيضا أو قبيالة الصومالي اللي قرر لغو فيرنا يقف كان يقف له بلا يهاي أنا الحرين أنا التابن أنا كن لي لكن أنا شخصيا قلبي يارنتس وإلهي وكسي mana ii suurta gasho qof shabaab inaan ehelad ku soo dhaweysto laakiin waxaan rabnay inaan maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo ama ciidankana inuu suudo inay daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay. laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas'uuliyiintu inay gobolka Gado ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen al-shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dawladda federaalka midna. saddex iyo tobankii bishii Febraayo ee sanadkii hore 2017 Isaaq Boorow Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa al-shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhaweyn u sameeyay una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawirro iskaga qaadeen. Isaaq Boorow Cali waxa kadibna loo dhaadhiciyay xarunta dhaqan celinta taasi oo ka qalin jabiyay sanadkan horaantiisii isagoo qaatay lacag dhan $1,500 oo la siiyo dadka ka qalin jabiya xarumahaasi.
toddobaadkii aynu soo dhaafnay isaaq boorow cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed meel u dhaxaysa magaalooyinka baydhabo iyo awdiinle askari kalena dirqi ayuu uga baxsaday waxa uu qaatay labadii qori waxaana uu dib ugu laabtay al-shabaab maxamed cali abshir waxa uu ahaa ninka kale ay isku maalin soo goosteen isaaq boorow cali isku maalinna waxay ka qalin jebiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada baydhabo isaaq boorow cali kolba gobolka bay ma dhaafsano waxaan u malaynaya adii meelahaas ii sheegay meelahan shabaabka joogaan oo ka maamulo oo ilaaliya qaarkaas inuu joogaan kalaya hadda laakiin inuu baxayna xaqiiq weeye warkaas waa gartay markuu baxayay muxuu sameeyey markuu baxayay wuxuu sameeyey niman buu kaxisay markuu meel dhac la marayo waxaa ii sheeg nin buu qori ka qaatay ninka markuu ka qori ka qaatay ka kalena banaan buu u yar baxay markuu banaanka u yar baxay kii agtiisa joogay waa bad ku dhuftay kii adiga bad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheeg asiga bad markuu maqlay oo yuu meesha kasii kacay markuu kasii kacay buu u habadeeyey saasuna ya maxaan ku rahday hooshu dhacday marka imise qori buu qaatay 2 qori aa ka fadhisabina hal askarina wuu dilay hal askarina wuu dilay maxamed cali abshir waxa uu ii sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu al-shabaab dib ugu laabto waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta baydhabo oo dib ugu laabtay al-shabaab waxaana ka mid ahaa ciise lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mid a ilaalada wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed 3 toddobaad ka horna dib ugu laabtay al-shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna 2 ka mid a ragga ka soo qalin jabiyey xarunta dhaqan celinta ee baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sarkaal ka tirsan booliiska magaalada raggaasi waxaa ka mid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017 oo ku beegnayd bisha ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaalla magaalada baydhabo ku dhex toogtay wadaad caan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray sheekh madeer madgaab cali 3daasi nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa xasan cabdulaahi ibraahim qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee baydhabo lacagtiisiina qaatay mas-uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqayn jiray al-shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray wakhtiyo badan isaga oo bixinayay cudurdaaro kala duwan xasan qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im wasaaradda amniga ee soomaaliya waxaa hoos yimaada 3 xarumood oo dhaqan celin ah kuwaasi oo ku kala yaala magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka hadhay dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2,000 oo dad ah oo ka soo goostay ururka al-shabaab kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya al-shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka al-shabaab marka ay hawshooda gutaanna ay dib ugu laabtaan mid ka mid a saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeya barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 10% dadka soo goostaa ay dib u laabtaan mid ka mid a saraakiisha ka soo goosatay al-shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin cumar maxamed abo ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab dadka oo ka soo goosanaya al-shabaab dhammaantood ma aha daacad waxay iskugu jiraan 2 kooxood koox oo dhab ee ka tahay iyo koox hadaf leh hadafkooda waxa u kala qaadaya inay tahay 2 ayay leeyihiin hadaf ayay ka leeyihiin markay soo goosanayaan mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiiliyaan xerooyinka ay ku helaan ee dhahaan raggii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadeen calmaaliyad baa joogto diintana laguma dhaqmo dib usoo tashkiiliyaan markay dhibaatooyinka la kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku hela ammaan halkaas markay ammaan ku helaanne oo la aqoonsado oo dawladda markaas u fasaxda magaalooyinka inay kala galaan kabacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto la dhaho xerisrintii ku jira ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho kabacdina meeshaas dhibaatooyinkiisa uga sii watay ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xerisrindi waxay siinaysaa caddayn qofkii inuu meel kastegi karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya al-shabaab sax meel kasta inuu tegi karo meel kastana u mari karo howlihiina shabaab u fulinayo isla markaana dhibaateynayo dadka muslimiinta ahay isla markaana dhibaateynayo qofkii si run ah isku soo dhiibo oo markii la tashkiiliyey kabacdina madax adeegay kaasna waa beegsanayaan waxay beegsanayaan waa dawladda waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tegey ee hadhowtii xerooyinkii iyo meelaha kasoo tegay dib inuu urufiyaan ay u diidayaan usoo jaajoos u diidayaan kuwaasna waa beegsanayaan
marka hadafyada ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dawladda ah ayagoo haysta waraaqado ay jidadka ay ku mari karaan iyo aqoonsi. hadhowta markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa way sii daya raggii soo dhiibay oo halkaasan uu ku helo ammaan buuxdo si oo wax holiis u fusho ilaa uu ka fashilmo. guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo caddeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin al-shabaab loona soo xukumay dembiyo la xidhiira argagixiso islamarkaana soo dhammaysta xukunnadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqancelinta. gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga soomaaliya. usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan al-shabaab oo soo galay faldembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay. hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. qofka lagu soo eedeeyo al-shabaab balse caddaymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. waxaa kaloo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta al-shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. waxaa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay. tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista. taas beddelkeedana ku soo degay mas-uul ehel ama qof kale oo asxaab ah. hase yeeshee wakhti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan al-shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. go'aanka lagu hor joogsaday in al-shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23 bishii Febraayo sanadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi. waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayey xubnihii al-shabaab ee maxkamadaha soo maray. mid ka mid a dadka hore looga sii daaya xabsiyada dowladda ayaa 7 toddobaad ka hor mar kale loo soo dacweeyey fala la xiriira al-shabaab waxaana mar kale la hor keenay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute. imise qof oo xabsigooda dhammaystay oo shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayey kadib loo soo dacweeyey fala la xiriira shabaab? way badan yihiin dadka noocaas ah. tan xilligaasi markii oo waxaa lagu maqaalaa dadkii aan horta oo la geey jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin tiro 64 qofooda ooda laga qaaday. taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhammaystay qaybtii oo ku naqatay shabaabka ama qaybtii oo looga shakiyey in dib loo soo dacweeyey. dad bil walbo amba 2 bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 ka mida maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay shabaab dib ula midoobeen. ayaga laftigoodana markaa weydiiso ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood. kiisaska hore loo xirayna maxaa ka mid ahaa labadaa haddaad soo qaado toddobaadkan maxkamadooda kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid ka mida 2016 dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore ugu heshay. markuu xabsigaas dhammaystay wuxuu ka mid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqan celinta Sarandi qaybtan Sarandi in ay qabato ka mid ahaa. Sarandi heshiiskaas iyo xasan gaarnay dhaheen saasi ay ku suurageli weysay inay qabtaan. kadib saasuu oo banaanka uga baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda dambi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhammaystay. qaab kaloo loo hayay oo qaab maxkamadda iyo xabsiga weyna ugu sii jiri kara ma laha. dembigu galay maxay ahayd markaas? shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd. haddana maxaa loo soo xiray? inuu argay shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan uu dib ugu laabtay. 30 bishii November 2014 Faysal Yuusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhammaystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta. balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faysal Awliyo iyo 64 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray al-shabaab waxaa laga sii daayey xarunta dhaqan celinta. gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen. Faysal Yuusuf Aadan wuxuu ka mid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeelada dhaqan celinta ay marka hore dadkii ogoladu ka mid yahay. wuxuu ka mid ahaa dad la soo qabtay oo hay'adaha ammaanka ay soo qabteen ay garsoorka hor keeneen iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay. baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkani ka tirsanay shabaab kaliya in dambigaas ay ku heshay wayna ku heshay. kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay. xabsigiisaas wuu dhamaaday 2014 taqriiban xilligaas oo dhamaaday bishii 11aad. sida nidaamku waagaas ahay
maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkaani dembigii intii la ekaay garsoorkuna uu saaray waxaa loo baahday in sarandi la geeyo. maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo. marka xilligaasi 2014 maxkamaddu waxay geysay Faysal waxay geysay xerada dhaqan celinta sarandi hadda xamar ku taalo. taasi muddo intisaas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda Faysal